nimankan tabliiqa ah waxyaabay ku fiican yihiin waxaa ka mid ah nin dhallinyaro aan xaafadooda deganay raacay oo soo noqday oo muddo la socdaan ku yidhi wareedhe bal ii warran xaafadda maxaa hadda haysaan shaqo wuxuu yidhi xaafadda dadka joogo o dhan baanu tiro koobnay haye maxaa samayseen dee dadka labaanu u qaybinaa buu yidhi wax tukada iyo waxaan tukanin gartay waxaan tukanin isaga salaaddaa lagala hadlaa buu yidhi iyo inuu tukado wixii tukadana war diinta xil baa kaa saaran baa loo sheegaa mas-uuliyadda diinta qaadoo faafi waa fikrad saxa waxaan tukanin in salaad loo sheegaa salaaddu waa rukunkii labaad ee ugu weynaa diinta islaamiga salaad haddii laga tegay ma diin baa hadhay dacwada kale la sheegaya waa maxay tawxiid dabadii ma wax kale aynu sheegnaa jiro salaad ka weyn haddii salaadi lunto maxaa soo hadhay idan dadka maqaaxiyaa laga kaxeeyo la dhaa warka halaya tukada caamadu soo ma garanaysa inay dadku tidhaa war ilaahay ka boqo kaalaya tukada waxaa u diidaya inay ducaad noqdaan markaa oo intaa dadka u sheegaan waxaanay garanayn qofku yuu sheegin war aanad hubin nebi maxamed baa yidhi ha iska odhanin warkaad hubto uun iyo intaad garanaysa xaqiiqo ku og tahay intaa sheeg idan waxaan leenahay markay dacwo joogto innaga wax iska keen qaldamay dacwadii iyo cilmigii sax kitaab iyo cilmi nimaan garanayni ma dhigo dad ahlu cilmiyuunbaa wax dhiga laakiin balaaqu kan maaha nebi maxamed muxuu leeyay markuu saxaabadii isu soo ururiyey calayhi salaatu wasalaam baliquu cannii walow aaya baliquu cannii kitaab allahi oo dhan lama odhanin baliquu cannii walow aaya buu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam hal aayadda ha noqotay iga gaadhsiiya idan waxaynu leenahay qul haadihi sabiilii adcuu ila allahi calaa basiiratin ana waman ittabacanii waman axsanu qawla miman dacaa ila allah wacamila صaalixa waqaala inanii min almuslimiin inanii min alculamaa maaha inanii min almuslimiin nin leh ayaa daaci noqon karaya bale qur-aanku wuxuu inoo warramayaa xataa kuwa yaryar inay dacwad fulin karaan carruurtu ilahay qur-aanka wuxuu kaga warramayaa nin la yidhaha luqmaan alxakiim soo maaha hal qisoo quru qur-aanka ku leeyahy luqmaan meel kale qur-aanka lagaga warramay suuratu luqmaan oo qura hal qisoo quru ku leeyahy qisada uu inankiisa waaninayo inanka yare la waaninayo maxaa lagu yidhi yaa bunaya aqim الصalaaة maxaa ku xiga wa'mur biاlmacruufi wanha can اlmunkar hadda carruurtuna ducaad waa noqon kartaa markaa ilan luqmaan inankii yaraa markuu salaad u sheegay wuxuu kaloo u sheegay maxay yaa bunay wuxuu sheegay wa'mur biاlmacruufi wanha can اlmunkar idan ha isku qaldina markay tahay cilmi dad la barayo ahlu cilmiga iyo masaa'il laga fatwoonayo iyo markay tahay ciddii cilmile baa ku shaqo leh marka ay tahay in dadka waxaa diinun ka garanayso walow ha noqoto kii yaasiinka ilaahay inoogaga warramay intuu sheegayne ka yaasiinku wax kale ma sheegin war run buu sheegayaa raaca haddaad tidhaha war wadaadkani run buu sheegaya wadaadka raaca ma waxba kaa xumaanaya waxaa laga yaabaa odayga waayeelka ama suldaanka ama caaqilka ama waxgaradkee dadku ereygiisa u dhegaysanaya hadduu intuu istaago yidhahdo wararkaasi xaq buu idiin sheegayaa raaca hiil ka weyni ma jiro dacwo ka weyni ma jirto waxa uu sheegayna waa intaa uun isagu qur-aan badanna ma akhrin wax kale wuxuu sheegay warninkani xaq buu sheegayaa iyo maxay raaca waa dacwa waa suuratu yaasiin dacwaday ka warrantay meeshii saddexda rasuul joogeen ninkii dacwada ka sheegay intaasuu sheegay ayuha alaxiba ilaahay wuxuu ina leeyahay walow shi'na labacatnaa fii kulli qaryatin nadiira walow shi'na labacatnaa fii kulli qaryatin nadiira haddaanu doonna baa ilaahay yidhi magaalo kasta mid gaaraan u soo diri lahay rasuul gaara laakiin ilaahay wuxuu inoo sheegaya inaanu doonin maxaa ku xiga aayadda ku xigtaa waa maxay falaa tuطic اlkaafiriina wajaahidhum bihi jihaadan kabiira gaalada ha maqline kitaabka ha kula dirir baa la yidhi kitaabkaasi wuxuu sheegaya in dadka u sheeg idan ilaahay hadduu doonayo tuulo kasta rasuul buu u soo diri lahaa laakiin innagaa waxaa layna leeyahay maxay kitaabkan ku dagaalgala kan baa ah risaalo wixii uu rasuulku sidigi lahaa kan buu ku yaallaa waxaan ku soo koobayaa tusaalayaal kooban baan idin siinaya
taariikhda muslimiinta waxaa la hayaa dowlado muslimiinoo jabay boqorro muslimiinoo la qafaashay ama la dilay dowladdii muslimiintaoo laga xoog batay haddana islaamku isma dhimin muslimiintu ma tiro yaraanin way sii badanayeen xaggay wax ka jiraan markaa ciidan baa jira aan jabin jeyshu dacwa ma jabo walidaalika dadku iminka inta badan waxay mashquul ku yihiin kurasida siyaasiga ah taariikhda islaamiga waxay leedahay bay yidhahdeen mucjisa waxay ku tilmaamaan culamaa'i taariikh mucjizaad waa maxay taariikhda bini aadamka laguma hayo dad waddan qabsaday oo dadkay qabsadeen ee u telinayeen ay hoostooda ku jiray diintoodii qaatay islaam mooyaane lama hayo had iyo goor bini aadamku haalibku raacaa cidda xoog badan duu nin waddanka qabsado iyo waddanka iyo waxoo dhan iyo dadku waxay u badan tahay inuu raaco maxay kaasi mabda uu watay laakiin dadkii la qabsaday mabda'ooda inay salaatiintii qabsatay qaadataa taariikhulislaam unbaa lagu hayaa walidaalik idinku ma tihidin askartii iyo milatarigii iyo siyaasiyiintii idinku waxaa laydiin tirayngareeyey inay noqotaan ciidanka quluubta furta ciidanka quluubta furtaa waa isku mid qalbiga madaxweynaha iyo qalbiga caamada suuqa joogtaa waa isku mid hayse odhaninuun madaxweynaha inta meesha laga qaadaba islaam la geeyaa ee islaamka laftiisaa loo geyn karaa madaxweynaha qadiyada ma fahamteen taariikhulislaam waxaa la hayaa markaa meel muslimiintu ay xoog ku qabsadeen oo islaam lagu faafiyey waxaa kaloo la hayaa gaalo intay muslimiinta qabsatay gaalka laftiisii islaamka loo sheegoo islaamay taariikhda bini aadamka kale laguma hayo walidaalik jeyshu ducaat markaynu leenahay waa ciidan shuuciyiintu waxay lahaan jireen waxa la yidhahdo maxay dal jirka dahsoon waddannadan shuucigaa buu ka jiraa taallooyin baa la dhisi jiray la yidhaahdo maxay dal jirka dahsoon waxaa jira markaynu taariikhda islaamiga aan noqonno diin jirka dahsoon dad baynu haynaa taariikhda wax ka beddelay aynan garanayna ciddii islaamisayna maalan addawla asaljuuqiya ma maqasheen dawla saljuuqiya waxaa dhacay qarnigii shanaad meelahaasi wakhti ah mashriqi alcarabi waxaa qabsaday dawla alfaatimiya oo soo qabsaday mashriq ilaa masar ilaa iyo bayt almaqdis iyo agagaarkeed iyo shaam qaybo ka mid ah intaa waxaa qabsaday dawla alfaatimiya dawla alcabaasiya nin baa loo magacaabay buwayhiyiintii shiicada ahayd baa qabsatay dabeetana boqorku wuxuu iska noqday wax magaca labada dhanba shiica qabsatay markaa caalamulislaami labadani markay shiicada qabsadeen waxaa bilaabmay baatiniyada iyo faafkeedii ismaaciiliyiintii ayaa bilaabmay iyo faafitaankoodii waxaa bilaabmay baatiniyiintii meesha tan kacbada kuwii qabsanayay waa markay soo faafay waxaasoo dhan baa bilaabmay waxaa faafay markaa caalamulislaami oo dhan oo ahlu sunnaa cagta hoostiisa la geliyey oo dowladdii islaamiga aanay jirin waxaa jirtay aasiya suqra dowlad ka dhisnayd oo turki ahayd dowladda turkiga dowlad gaalaa bay ahayd daqaaq nin la odhan jiray baa ahaa madaxda u sarraysa ka mida ciidamada haystay waxaasi inaanu dhalo saljuuq la yidhaahdo ayaa meeshii dhaxlay inan caqli badan buu ahaa dowladnimadii baa ku dhisantay nin xooggan buu noqday boqorkii meesha joogay ayay gabadhiisii xaaskiisii waxay tidhi kani hadduu sii joogo meeshuu kaa qaadaya war ninkan ka takhallus madaxdu had iyo goor nin ka fariidsan ma jecla ninka madaxweynahay wasiiradiisu waa inay ka caqli hooseeyaan dee dad mid kaa fariidsan keento uu ku hadhaynaya marka inta badan madaxdu ninka sulta haysta ma jecla cid isaga ka hoosaysa isaga ka sarraysa ma jecla dee cid aad wadi karta waa inaad ka haysata ilaan nima aad wadi karin haddaad ka haysato adaa jabaye way u cabsatay in uu ninkani ka qaado meesha markaa waxaa la yidhi ninkan ka takhallus ninkii waxaa la damcay in laga takhalluso
saljuuq ibnu daqaaq wuxuu ogaaday in la dilayo dabeetana qabiilkiisii raggii ugu roonroonaa iyo ciidamo wuxuu la baxsan karayay rag 400 oo nin iyo wax gaadhaya buu goostay u baxsaday wuxuu u tallaabay dhulkii muslimiinta halkaasuu iska degay muslimiintaa soo dhawaysay ninkii diintii baa loo sheegay wuu islaamay gruubkiisii la socday waa islaameen meel yar buu samaystay dowladdiisii baa sii xoog badatay way soo socotay waxay soo gaadhay inanku awowga u ahaa yani daqra albik ninkii la odhan jiray daqra albik waa ibnu daawuud ibnu mikaa'il ibnu saljuuq weeyaan daqra albikaasi ayaa xoogaystay khuraasaan iyo intaasoo dhan buu isku qabsaday dowlad yaroo xooggan buu noqday boqorkii halkan shiicadu ku haysatee nafta haysataa waraaq hoosta uga dirtay oo meel iskaga xidhan oo yidhi war na soo gaadh haddaad na soo gaadhi karto daqra albik baa ciidamadiisa soo kaxaystay wuxuu qabsaday baqhdaad buwahiyiintii buu ka takhallusay dowla islaamiya baa dib u soo noqotay waa geeriyooday walaaladii raggii baa sii qabsaday waa alabarsalaan baa dhaxlay alabarsalaan wuxuu ka mid yahay boqorradii ugu cadaaladda badnaa ee soo mara taariikhda islaamiga wuxuu ka mid yahay nimankii maxaa la yidhaahdaa alxuruub asalibiya alula waاthaaniya waa ninkii ilaahay gacantiisa ku joojiyey wuxuu ka mid yahay dowla sunniya ninkii dib u dhisay ee xoojiyey ilaa shaam gaadhsiiyey dowla alfaatimiya joojiyey bal dowla albisantiya dhul badan ka furtay dee maladakar waa taqaani mafle macrakada la yidhaahdo qisaskii uga cajabta badan leh isagoo meelaha si dagaal ka wada ayuu boqorkii bizantiyiinta qustantiin haystay dowla albisantiya haystay baa ciidamo urursaday ilaa 200 oo kun ciidan gaadhaya bay yidhaahdeen wuxuu ku talagalay inuu muslimiinta oo dhan ka takhalluso alabarsalaan baa loo sheegay oo 20 kun oo ciidan ku dhadhow wata qaarkood 15 kun baabay ku sheegaan wuxuu yidhi maxaan yeelaa nin sheekhoo la socday baa yidhi maantunbaa magac iyo jannaba kuugu dhowday maantadanaynu joogno laba midun baad heli taariikhdu nimay qorto magaca leh oo muslim oo dhan badbaadiyaad soo bixi ama jannadaad hore ka geli ma meel la shakiyaabaad joogtaa ciidamadiisii oo dhan buu isugu yeedhay oo yidhi dhegaysta maanta laga bilaabo boqor ma yihi sidii boqorna waxu amri maayo gaala wayse soo urursatay waxaan go'aansaday inaan dagaal galo idinna way iga fasaxantiin wixii ila dagaalgelayona way ila dagaalgeli kartaan wixii iska tegayona waad fasaxantay waxay yidhahdeen boqor mar haddii islaam la difaacayo aad ilaahay dartii u dagaalamayso waa kula dagaalgelaynaa 20 kun baa la dagaal galay muqadamadii ciidanka hallaysale wuu jebiyey